شعبك إسرائيل كل عي ماركتين إنا لله وإنا إليه راجعون في عاصمة دودي تل أبيب وح كل عي هبكة نوعيدي سكر الدون جنتالده أي ستوس وصعد Iran, please stop. إسرائيل محا كل عي ما أجيدين وحي أي فلسطين كسميين هذا كور مجالده غزة قابك أي أوجلين أي الله جلاي سيدا أوتشيدان هل كان دعوة مقالكي عاصمة إسرائيل تل أبيب أي سيدا كل جسمي kadib markii dhulka lala simay dabaqyadii oo dhan shacabkii ayaa ooynaya oo afka ooyin jabsaday yahuudkii weynay meeshii uu ku dambeeyay ee Netanyahu ahay oo Somaliland u soo cararaya ayaan xog kaaga hayaa marka hore daawo muuqaalada calanka Israa'iil oo dhulka yaala iyo sidoo kale dabaqyadii waaweynay ee ku yaala Tel Aviv oo dhulka lala simay iyo Netanyahu oo xaaladdu ay aad ugu xunta shacabku waxa ay leeyihiin Israa'iil wixii aan ku sameynay Falastiin ayaa nagala goynaya ooyin ayna afka furteen ayaga oo kala cararay iyo sidoo kale Mareykankii oo yiri maya Israa'iilay waa idinku kaligin Mareykankii Donald Trump ayaa balanti uga baxay Israa'iil kadibna waxa uu ku yiri anagu ma aanan moodeyn xaaladdu inay sidaan tahay Iran dhowr gantaal ku tuuro ayaan islahaynay kadibna xaaladdu waa ay degi doontaa balse Iiraaniyiintu waa ay soo kacsadeen oo jinni iyo insi ayay soo wateen waa kuwa saan oo garaacaya ayuu leeyahay kadibna waa ay ka baxeen balantii Mareykanku ugu dambeyn Netanyahu xaaladdu aad ayay ugu xun tahay Mareykankii aad ay isugu kacsan yihiin sidan ayaana loo galay caasimadii odagii weynay waxa uu taagan yahay Somaliland ayaan aadaa war halkeen ku cararaa Mareykankan ku cararaa oo Donald Trump ugu tagaa mataqaana isheega state house-ka Mareykanka ayaan galaa xaaladdu aad ayay u xun tahay marka Israa'iil balanti waa looga baxay Mareykanku waxa uu taagan yahay waxa uu taageeray Israa'iilba ugu dambeyntii waxa uu taagan yahay war Israa'iilay hada istaakulay kartaan istaakuleeya xitaa hubkii ma uu siinayo oo hubka xataa wax hub ah oo ka dhamaada xataa Israa'iil ugu dambeyntii marka Israa'iil xaaladeedu waa ay xun tahay waxa way Gaza qaabka ay u gashay caasimadii Falastiin ayaa ugu dambeyntii ayagana sidan loo galay oo si loo burburshay magaalooyinkoodii Netanyahu xaaladdu aad ugu xun tahay marduna waxa la filayaa inuu Somaliland soo aado oo halkaas iska soo dhiibo maadaama walaalihii oo Soomaaliya ku yeeshay Somaliland ay waxa way wali garab taagan yihiin taageersan yihiin wuxuu leeyahay halkaas iska soo dhiibaya marka waxa laga yaabaa in Netanyahu mardhow aad Somaliland ku aragtaan saaxiibayaal bridgekan flow soo dhaha qarsoon media sidoo kale si share gareey hadii aad jabka gaalada Yahuudda ku farxsantihiin muuqaalkan waa mahadsantihiin